salaan runtii ninkii raba sawirka Puntland iyo quruxdiisa caawa wuxuu ka dheehan karaa Carmo waa horumarka Puntland oo sawira xilligii Puntland la asaasay waan garanaynaa beesha tani sayaxayd maantana waa ilaahay mahadiis intaasoo shacaba magaalooyin qurux badan oo horumarsan oo dhisan laamiye leh biyo leh koronto leh carwooyin leh dabaqyo leh u malayn maayo 24 saac 24 sano 24 saddexdaa qodob waxa weeye baahida deegaanku qabo oo degmadu qabto iyo tuulooyinka hoos yimaada waxa la rabaa shacab ahaan inaa idinku maaragtay muxuu ahaay noo soo gudbisaan noo sheegtaan wixii karaanka yaan ka qaban karno sida ugu dhaqsaha badanna waan ka qabanaynaa wixii kale tan waan iska kaashanaynaa insha Allah taala annagu waxaan u soconnay laba qodob qodobka koowaad uu yahay maadaama la yiri dimuqraadiyad baa la aadaya dadkuna waa inay isdiiwaan geliyaan oo gobolada tan muxuu ahaay lagu bilaabayo bari Gardafuul iyo Karkaar in gobolka bari oo idinku aad ka qayb ka tihiin shanta bisha maalinta la bilaabo insha Allah taala reer Carmo ay isdiiwaan gelintii abid ugu ballaarnayd iyo ka turjumaya deegaankan iyo korramadiisa ay isdiiwaan geliyaan waana meesha runta muhiimka ah arinta labaad u soconay waxa weeye marka isdiiwaan gelisaan inaad maadaama anagu dadkeedii ku soo horeynay maadaama aad ogtihiin xukuumadda hadda aan ka tirsannahay shaqada ay ka qabatay Puntland inta ay joogtay ina codkiina nagu sharaftaan waxaan u malaynayaa inaanay jirin cid naga mudan haddii ahaan lahayd amni haddii ahaan lahayd wadooyin haddii ahaan lahayd ceelal haddii ahaan lahayd idinku reer Boosod baatiina haddii ahaan lahayd dekada Boosod kale wasiirka dekada jooga ka sheekeyn doonee oo shaqo hadda laga bilaabayo aeroboortkii korontadii biyihii oo intaas Boosod ka socdaan waxa soo dhan oo la qabtay sidii loo sii horumarin lahaa loona sii ballaarin lahaa inaa qayb ka noqotaan waa laga yaabaa in fariimo muxuu ahaay guracan oo dadyow ka soo horjeeda dimuqraadiyadda inay idin soo gaaraan laakiin wax baa idin sheegaya reer Carmo idinku kuwii fariimaha qaadan lahaa ma tiidin maanta inaa codkiina ku cilbaxdaan oo Carmo golo deegaan wali ma yeelan saan ognahay oo ay noqoto taariikh gasho degmooyinka ugu horeeyay burburka bacdi la asaaso oo dimuqraadiyadna degmooyinka ugu horeeyay oo golo deegaan yeesho ay noqotaan rabnaa insha Allah taala waxa kaloo aad idinku ugu khasbantiin inaad dimuqraadiyadda qayb ka noqotaan waan dareemayaa deegaanadan muxuu ahaa goboladan inta badan tabashooyin baa la sheegtaa meesha aan tabashooyinka maanta kaga bixi lahayn oo kuraasta dalka ugu sarreysa wiilka Carmo jooga iyo wiilka Caluula jooga iyo wiilka jooga Qandala iyo wiilka Garowe jooga ay u sinaan lahaayeen waxay ku imaan kaliya dimuqraadiyadda ku imaan kadhaa mar raba hadalka inaan ku raago laakiin waxba yaan la idinka waswaasin